magaalada Jowhar ee xarunta Shabeellaha Dhexe waxaa maanta si heer sare ah loogu soo dhaweeyay musharax xildhibaan Naciima Ibraahim Yuusuf oo ka mid ah xubnaha u sharaxan xildhibaannimada dawladda Soomaaliya ee sanadkan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa banaanka magaalada kaga hortagay musharaxa waxaana salaan kadib musharax Naciima Ibraahim Yuusuf ay meel fagaaraha kula hadashay dadkii soo dhaweeyay waxaan ku faraxsanahay maanta inaan imaado Shabeelle Jowhar dadkii soo dhaweeyay kulli waa idin mahadcelinaya waxaana ahay musharax xildhibaan wax badan ma dhahay insha Allah waxaan rajaynayaa ballanqaad badan inaan suubiyo ma rabo laakiin insha Allah waxaan rabaa inay soo duceysiin wax qabad dhab ahna ay idin qabto oo shuruud lahayn sidoo kale waxa iyagana goobta ka hadlay qaar ka mid ah dadkii soo dhaweeyay Naciima oo ah musharaxii ugu horeysay ee xildhibaannimo kaga dhawaaqda magaalada Jowhar waxaan baryaynaa maadaama koobka gabdhaha ay qaaday sida waxyaabo meelaha qarkood aan arkayna galmudug oo kale iyo jubbooyinka oo kale musharaxiinta way tagayeen laakiin maanta gabadhan waxay koobka ku qaaday musharaxii ugu horeeyay ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdo musharaxii ugu horeeyay ee gobolka Shabeellaha Dhexe yimaado ee xildhibaan qaran soo dhalinyarada haweenka shaqaalaha kulli wixii gobolka jooga hay soo dhaweeyaan waa ka xumahay in sidii oo maaragta loogu talagalay aan loo soo dhaweyn xoogaa aan dhaliil qabno sababtuse waa waqtigaan ugu kulaaday waxaa meeshaas cadeynayaa in aan cimi soo dhaweynayno inaan gabdhaha Soomaaliyeed khaas ahaan labada gobol ka soo jeedo soo dhaweynayno kuna boorinayno inay ka soo qayb qaataan maxaa la jireen si ugu qayb qaataan siyaasadda dalka socoto Yuusuf Abubakar Ibraahim telefishinka caalamiga ee Home Cable Jowhar.